يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج تحنا وينوغو تلقلنا بشا بركيسان رمضان aynu kaga hadli doono haddii ilaahay raalli ka noqdo axkaamteeda iyo duruus kale oo ku saabsan fadliga camalka wanaagsan ee bisha ramadaan lala yimaada uu leeyahay. waa casharkeenii koowaad waxaynu kaga hadli doonaa sida ay ku sugnaato bisha barakaysan ee ramadaan. bishii barakaysan ee ramadaan baa inoo soo gashay. waxaynu ka hadli doonaa axkaamteeda qodobka ugu horeeya oo ah sida bishaasi ay ku sugnaato. bishu waxay ku sugnaataa yuthbitu shahru ramadaan biru'yati alhilaal. bisha ramadaan waxay ku sugnaataa marka la arko bilashada bisha ramadaan walow min waaxidin cadlin nin caadilo oo keliyiba ha arkee aw ikmaalu ciddata shacbaana 30 yowma ama 30 shacbaan ay dhammaadaan. waa labadaa shardi weeye. taariikhna la eegi maayo, muhmalna lagu soomi maayo. waxaa lagu soomayaa marka bisha la arko qof caadiliba ha arkee ama 30 shacbaan ay dhammaadaan. maalinta ku xigtaa waa kowdii bisha ramadaan weeye. waa labada arrimood. labadaba daliiladoodii baynu tilmaami doonaa axaadiis saxiixa oo tilmaamaysa. can ibni cumar radia allahu canhuma qaal waxau yihi taraa annaas alhilaal. dadkii baa waxay arkeen bishii dhalashadeedii. fa akhbartu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u warramay annii ra'aytuhu inaan arkay. rasuul allahu dadkiina way arkeen anna waan arkay ayaan ku idhi. fa saama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soomay wa amara annaasa bisiyaamihi dadkiina wuxuu amray inay soomaan. rawaahu abu daa'uud waalxaakim wa ibnu xibbaan wa saxaaxaah. ibnu cumar ilaahay ka raali noqday waxa uu leeyahy dadkii baa waxay arkeen bishii aniguna waan arkay. dadkii baa istusiyey wataa bishii wataa anna waan arkay. dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid buu yidhi oo waxaan u warramay inaan bishii arkay. dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay warkii ibnu cumar oo markhaati labaad keen ma odhan iyo dadkii kula arkaye wuxuu qaatay warkiisii. wuu soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiina wuxuu amray inay soomaan. markaa qof keliyahoo muslima oo caadili hadduu arko bishii waa lagu soomayaa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحده صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. أركتي كصوم أركتنا كأفرع فإن غم عليكم هدي لا إذن كدبوله فأكملوا عدة الشعبان 30 يوما. صدق شعبان لما يسترع. رواه البخاري ومسلم. النبي وحده عليه الصلاة والسلام أركتي كأفرع aragtina ku sooma haddii la idinka daboolana 30 dhammaystira. marka aragtibaa marka hore lagu soomaya oo waa bishii oo la arkay. aragtina waa lagu afuraya waa bishii oo dhammaatay. haddii la idinka daboolo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo daruuro ama caad ay idinka qariyaan oo aada arki weydaan 30 shacbaan dhammaystira. waa xadiiska loo cuskanayo ee ugu xooga badan leh
in aragtina lagu soomayo aragtina lagu afurayo haddii la waayana la dhammaystirayo soddonka sidoo kale haddii la waayo rabadaanna dee soddonkeedaa la dhammaystiraya mar haddii shacbaan soddonkii la dhammaystiray markii la arki waayey rabadaan dhammaadkeeda haddii la arki waayana soddonka iyadana la dhammaystiraya taariikhna lagu soomi maayo muhmalna lagu soomi maayo labadaa midna lagu soomi maayo laakiin aragti ayaa lagu soomayaa aragtina waa lagu ciidaya qaala tirmidi wuxuu yihi waalcamali calaa hada cinda akharu ahli cilmi xadiiska in aragti lagu afurayo qof qura la qaadanayo ayay culimada badankoodu ay ku tegeen qaalu waxay yidhn tuqbalu shahaadatu rajulin waaxidin nin keliya ayaa markhaatigiisa la qaadanaya fi siyaami marka la soomayo marka la soomayo waxaa la qaadanayaa nin keliya hadduu arko oo caadila waa la qaadanaya wa bihi yaquul ibnu mubaarak washaafici wa axmed sidaasay ku tegeen waqaala nawowi wuxuu yihi wahuwa asax waa sida asaxay waa caynkaa weye wa ama hilaalu shawaal shawaal laakiin bilashadeeda fa yuhbitu waxay ku sugnaanaysaa biikmaali ciddata ramadaana 30 yowma inay bisha ramadaan soddonkeedu u dhammaado walaa tuqbalu la qaadan maayo fiihi shahaadatu cadlin waaxidin nin keliya markhaatigiisa la qaadan maayo cinda caamati alfuqahaa sida culimmadu ay u badan yihiin way kala qaadeen caamati alfuqahaa bisha bilashadeeda iyo dhammaadkeeda oo waxay dhahaan bilashadeeda waa la qaadanayaa nin keliya laakiin bisha dhammaadkeeda nin keliya la qaadan maayo washtaraduu waxay u shardiyeen an yashhada calىa ru'yatihi ihnaani dawaa cadlin inay ka markhaati kacaan laba caadiliini iyo wixii ka badan ilaa abaa thawr sheekha la ydhaha mooyaane fainahu lam yufariq fii dalika bayna hilaali shawaal wa hilaali ramadaan isagu wuxuu ihi lama kala saaraayo bilashada iyo dhammaadka waa isku mid weeye wa qaala wuxu uhi yuqbalu fiihima shahaadatu waaxidin cadli waaxid cadli nin keliyaa la qaadanaya buu labada jeerba laakiin sida jamhuur culamaa ay u badan yihiin waxa weeyaan bisha belashadeeda waxaa la qaadanayaa nin keliya laakiin markay dhammaanayso ee ciidda waa in laba iyo wax ka badani ay markhaati furaan waxay leeyihiin labada jeerba cibaadada loo dadaalaya oo markan hore ramadaan ay bilanaysana cibaadada loo dadaalaya mar hadduu nin quri arkay oo caadila waa la soomaya imankana cibaadadii baa loo dadaalayaa nin qura la qaadan maayo waa in laba iyo wax ka badan ay arkaan labada jeerba soomkii baa loo dadaalayaa bay leeyihin labada jeerba waxa dhici karta bay maalinta ciidda mid iska jibooday inuu yidhaahdo bishii baan arkay laakiin dee ramadaan looma jiboodo oo qof aan hubini way yar tahay inuu yidhaahdo bil baan arkay sidaa darteed bay labadaa u kala qaadeen waxaana la doonayaa bisha marka ay dhammaato iyo marka ay bilanayso labadaba in lagu dadaalo si loo sugo oo waxaa la doonayaa bilihii ka horreeyey ramadaan in la soo ogaado oo bishii rajab markay bilatay iyo markay dhammaatay bishii shacbaan markay bilatay iyo markay dhammaatay in intaba la ogaado si ay kuugu sugnaato dadaal fara badanna la sameeyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay markaa aada u dadaasho oo culimmadu aada u dadaalaan oo bisha aada loo eego oo dabadeedna markay sugnaato bishii in la arkay dabeedna la soomo markay sugnaato inay bishii dhammaatayna in la ciido haddaba culimmadu waxay isku khilaafeen ikhtilaafu mataalic mataalici iskhilaafsan oo waddamadii muslimiintu maadaama ay ballaadhan yihiin kala fog yihiin muslimiintiina ay maanta caalamkii ku faaftay oo dowlad kasta oo maanta jirta dad muslimiina ay joogaan ma mataalicdaa loo eegayaa qolo walba waxa la leeyahay marka waagu u baryay iyo markay bisha arkaanuun ha soomaan oo markay arkaanuun ha ciidaan mise aragti qura ayaa loo eegaya dahab aljamhuur waxay ku tegeen jamhuur culamaa
إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع إن أنا وح اعتبار إيه وح كسوق هذا أنا لهين مطالع ذاك القديس المطالع ذا وحويا عندي مر على عد وصبح واجو ذا بريو هي لا أنت أساسكم مطالعة مرنا قبل قوة دعوه وعالم كيم كوك الفقادو أنت أساس ساعدات عيالك له الرئية ستة ساعدات عيالك له الرئية ين كبدن مركا وارجونا وقت وما وذا بريو قبل كنا مر وما وذا دعيو مركا صد بدنا إلى حتى من محل جي ليا واجا أنو وذا بريين قبل كانوا وذا دعينين تبدنا تشوفون عمر وحيدا وحبا لقى سوق قادم مايو متى رأى الهلال أهل البلد مركا أي بش أركان ضد مسلمين أو وطن كنور وجب الصوم صوم كو واجبية على جميع البلاد وضمد كلا أردن مسلمين تعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي الدليل صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي نبي يقول أركتنا كو أفورا أركتنا كو صوما صوموا كو صوما بالي و جمعوي صوموا لرؤيتي أركتكو صوما أركتنا كو أفورا وهو خطاب العام خطاب كاسي وعام وي لجميع الأمة أمة دردن أيو عميمية فمن رآه نك أركا منهم يجا كمدا في أي مكان ملك استوء جوجو كان ذلك رؤية لهم جميعا أركتبه أوضا نقوني سادمانتود لأن النبي عليه الصلاة والسلام سي كود بو لحظة أمة دردن أو اسكود دوبان بو لحظة مركا دبدن حلو مر هدا أركتان صوما marka mid kaliya hadii uu arko meel kasto uu ku nool yahay wadamada kale oo dhan taasa aragti u noqonaysa oo muslimiintu waxa weeyaan waa mid kaliya weey waa ummad waahid diintooduna waa mid allahooduna waa waahid waa alla kaliya ay caabudayaan sidaa darteed ayaa la doonayaa mar qura inay wada soomaan mar qura ay wada afuraan marka jamhuurul culamaa iyagu sidaas ay ku tagay culimada qaar baa waxay leeyihiin sida sheekha ikrama iyo qaasim bin maxamed iyo saalim iyo isxaaq iyo sida saxiixa cinda alaxnaaf iyo sida la doortay cinda shaaficiyi annahu yuctabaru waa la ictibaarinaya waxbaa laga soo qaadayaa bay dhahdeen liahli kulli baladin ru'yatahum beled kasta aragtidooda loo eegaya walaa yalzimuhum ru'yata kayrihim kayrkoodna lagu laasimin maayo aragtida ay arkeen waxay daliishanayaan lima rawaahu kurayb sida uu warinayo kurayb xadiiska axmed iyo muslim iyo tirmidi ay soo saareen qaala wuxuu leeyay qadimtu shaam baan ka imid wastahalla calaya hilaal ramadaan waxaa igu bilatay bishii ramadaan wa ana bishaam anoo shaam jooga fara'aytu alhilaal leylata aljumca bishii waxaan aragnay buu yidhi bishii habeenkii jimce ثم قدمت المدينة مدينة أيانمد في آخر الشهر في آخر كيدي أيانمد فسألني ابن عباس بأي ويدي ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال وي وريستا وبشي بي وريستا ودكي بي وريستا مركو وركي سودا ميور بل بشي نكورن كور ما بشي أركتين فقلت وحن كودي رأيناه ليلة الجمعة وحن أرقنيها بينك الجمعة فقال وحول أنت رأيته ماذا أركي ولبسيه بنية فقلت وحول نعم أنا أركي ورآه الناس كلغي قرآن ما هيدتكنا وي أركين وصاموا وانا صومين وصام معاوية وأمير كي مسلمين تاهينا وصومي فقال مركا ابن عباس وحول لكننا رأيناه ليلة السبت لكن أنه بشي وحن أرقنيها بينك السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 كسولي مينا إنا نصومنا إلا أن صدق لما يسترنه أو نراه أما أن أرقنه فقلت وحن كود ألا تكفيني ميانا كوقف الليل رؤية معاوية وسيامة معاوية أرقتدي سيسون كيسو ميانا كوقف الليل فقال حول لا هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا أمرين وأمر كانوا بيش أرقنه إنا نصونه مركانوا أرقنا إنا نعفرنه ومركا أصوموا لرؤيتي وأفتلوا لرؤيتي بو يدي مركا أنغو مركانو أرغنون بانو سومينا مركانو أنغو أرغننا وانو أفرينا مركا والله ودا قول
laakiin waxa xoog badan qowlkaa jumhuurku ay ku tegeen oo ah dadka muslimiinta ah mar haddii meel ka mida laga arko inay inta kaloo dhammi ay ku raacaan maxaa yeelay wakhtigan imika la joogana suuragalba ma noqonayso in muslimiintii oo maanta caalamka kala firidhay oo qaxoonti iyo jab ku dhacay oo meel walba ka dhacday oo caalamka gaal iyo islaam waddan un la yidhaahdo dad muslimiinhi ay joogaan waddan kasta caalamka waxa maanta waddan ka jira waddan kasta dad muslimiin baa jooga dadkaa muslimiinta ee waddamada gaalada ku noolna suuragal maaha in dee bishii ay wada arkaan cid u eegaysa iyo cid u ilaalinaysa midna ma jirto dirqibaabay bisha ku ogaan karaanba oo bil ay arkaan iska daayo oo cadceeddaanay qaar aragba baraf baa ku fadhiya ama saacado yar ayuunbaa meel yaroo iyadoo ka bidhaamaysa ay cadceedda arkayaan bilna hadalkeedba daa marka dee suurtagalba ma noqonayso in qof walba la yidhaahdo halka uu ku nool yahay markuu arka uuna ku soomo qowlka markaa muctamadka ah ee ugu fiican waxa weeyaan in markaa lagu soomo waddamada muslimiinta sida xarameynka oo kale marka laga arko ee ay sugnaato in dhammaan dadka muslimiinta ah oo dham ay raacaan innagana alxamdulilah dee waxa weeyaan waxaynu ku noolnahay muslimiinta bartankiisii baynu ku noolnahay ama caalamka xuduntiisi iyo xarameynkii baynu la mataalicnahay oo aan waxbaba inoo jirin sidaa darteed marka ay sugnaato ee waddamada muslimiinta ah ee inagu wada xeeran ee aynu isku wada mataalicda nahay marka ay arkaan ee ay sugnaato ayaynu soomaynaa waxaana la doonayaa innaga lafteenu inaynu dadaalno oo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimmaduba ay dadaalaan oo dadka ay goor hore u sheegaan inay bishii bilatay iyo inaanay bilan mar hore in la ogaadaa la doonaya taan dadku seexanba in warku caddaado oo iclaamka laga sheego oo wasiirka diinta iyo awqaaftu iclaamiyo oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay dadaalaan culimmaduna meel kastoo joogaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meel kastoo ay joogaan iyaguna ay dadaalaan maanta telefoonnaa la haystaa isgaadhsiintiibaa fudud qof waliba si yar buu ogaan karaa tv-gaad ka ogaan kartaa oo idaacaddaad ka ogaan kartaa oo telefoonkaagaad ka ogaan kartaa oo culimmadiioo meel walba joogto oo aada la xidhiidho ayaad ka ogaan kartaa maanta lama odhan karo bishii maan arag iyo ma ogi midna suuragal maaha lagaa dhegaysan maayo marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina soo gaadhsiiyey oo nabadgelyo caafimaad inagu soo gaadhsiiyey bishii barakaysnayd ee rabadaan marka inaynu ku dadaalno oo aynu u diyaar garowno ayaa la doonayaa wakti kulul baynu ku jirnaa wakti abaara-a baynu ku jirnaa wakti dadkeena aada u busaaradsan yahay baynu ku jirnaa ilaahay subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha iyo busaaradda iyo dhibaatadaa maanta ina haysata in ilaahay subxana wa tacala inaga saaro barakada iyo fadliga bishaa barakaysanee rabadaan markay bisha rabadaan soo gashana arladoo dhan way qabowdaa oo roobka ilaahay subxana wa tacala shubaayo naxariistiisa oo busaaraddaa kacda wax alla waxaa maanta isku wada dhalaalay oo dhan baa kala wada dabca marka ilaahay subxana wa tacala waynu ka baryaynaa bishaa barakaysanee rabadaan inuu naxariistiisa inagu marnaysto roob caama ilaahay subxana wa tacala inoo shubo naxariistiisa ilaahay subxana wa tacala inoo shubo inagu marnaysto ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa ilaahay subxana wa tacaala innagana waxaa loo baahan yahay walaalayaal maadaama bishii barakaysanee rabadaan inoo soo gashay inagoo aada iyo aada u dhibaataysan baahan waxaa la doonaya inaynu toobad keenno inaynu diyaar garowno inaynu camal wanaagsan ku dadaalno inaynu ilaahay gacmaha hoos dhiganno bishaa barakaysanna soonkeeda aynu ku dadaalno busaaradani way iska tegi iyo dhibtan iyo kadeedkan aynu tabanaynaa markay bishu soo gashay ilaahay subxana wa tacala wuu inaga fududaynaya oo wuu inoo sakhiraya insha allahu tacaala ee inaynu bisha ku dadaalno dad fara badan ba markay bisha rabadaan soo gasho way cawdaan iyadoo aan abaariba jirin iyadoo aan busaaradiba jirin iyadoo sixir bararkani jirin ayay wada caban jireen odhan jira bishii rabadaan baa noo soo gashay annagoon waxba haynin annagoon ku talagelin annagoo maaragtay aan tabaabushaysan maantana maxaad u malayn maantana dad fara badan baa dee cudurdaar iyo soo qadimi doona marka cudurdaaradaasoo dhan inta la iska dhigo waxaa la doonayaa in bishaa barakaysan inaynu u dadaalno inaynu markaa soonkeeda iyo camalkeeda wanaagsan sidaynu ugu diyaar garoobi lahayn sidaynu ugu dadaali lahayn aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno ilaahayna subxaana wa tacala hadduu inagu soo gaadhsiiyey bilowgeedii ilaahay waxaynu ka baryaynaa
inuu dhammaadkeedana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina gaarhsiiyo ayaynu ilaahay subxana wa tacaala aynu ka baryaynaa ilaahayna haynoo fududeeyo bishaa barakaysan ramadaan dembi dhaafkeeda iyo naxariisteedana ilaahay subxaana wa tacaala hayna siiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ومن العب